wax wanaagsan aad leeyahay dhamaantiin magacayga oo yaa maxaa ka dhigay daawanaysan jaamay baat muuqaalkeen xogsaabsiya vlog maanta waqti hore ayaa bilaabay 5:35 ayaa bilaabay saacadda xog beegan 7:23 daqiiqo yani hal saac oo subaxnimo 23 daqiiqo maanta waxa u socdaa magaalo fog u dbaalay ma fahanti magaaladaas tagaya iyo magaalooyin kale to harjina muuqaalkeen maanta aad keli doontaa hadii aad wili kanaalkii subscribe saar waxa ku leeyahay subscribe de daw showaan الله لسباري ماشان ayaa laab dhigay waxa ku dajinaya afar shabaga maanta ku dajiyay hal shabagna waa ka soo qaado xilise hadda waxa tagaya terminalka weyn meeshaas ku dajinaa shabaga soo qaaday shabagay kala faaruqe kadibna waxa ka qaada alaabta oo qaadi lahay magaalada Udvala Troletan Finishbore afarta saddexdaas magaalo alaabta geelahay ayaa meeshaas ka qaadanaa ما terminalka xasaarana alaabta meesha saddexda magaalo idin sheega u socday alaabta geelaha saarana kadibna waa baxa inkastoo alaabtaan aysan ahayn alaab tira badan waa ka soo tagay terminalka hadda waxa afka aadey ama u jihaystay magaalada Udvala waxaan u socdoonaa waqti gaaraya 1 saac iyo 10 daqiiqo 1 saac iyo 10 daqiiqo meel loo soconayo inay sahlaneen aad waa dareemi kartaa soo marka magaalooyin badan tuulooyin badan asi dhaafi doona ma faati yani magaalooyin ma tuulooyin magaalo ma gaarsiisan ma fahamino soo marka tuulooyinkaasi dhaafi doona marwalba marka la simanaay waa idin sheega tuulada maxaa lahaa ee tahay magaalada hadda socdo Udvala Troletan iyo Finishbore waa magaalooyin waaye yar sida Qoryooley Mahaday iska maxaa la dhahaa magaalooyinka siriyarka kala ma fahamino yani tuulana ka tagay degmana ka tagay magaalo weyn aan noqon ma fahamto wali soo marka dhulkaas waaye Soomaali badan ayaa degan ma sha Allah Soomaali badan ayaa degan oo deegaan ku ah ka soo shaqo taga hadda wiil waxa jira meesha aan ka shaqeeyo magaalada aan ka shaqeeyo isla shirkadda ka shaqeeyo ma aragtay uga yimaada magaaladaas Udvala maalin walba hal saac ayuu soo safraa ma fahamto marka ninkaas aan arko saaxib waxa dhahaa adiga ma aragtay nin karmeed waa dhaaftay دبل كرميد حتى دبل كرميد ساعات الدولة موجودة لبعضن إلى بايا كقرن واجا يا أبري مفند هذا حوا هل ساعة يكون تنسديد دقيقة أصبح نمو بس ترينا مرو يدشيد خيبتا هذا كوسعة معركة صابتا وكوسعة واحد تاي ما دام باورت واوين ودن يوروب جودهان خاصة السودان ugu badnaan waxa lagu ogol yahay inaad ku soo kartid saacadii 90 kiiloomitir ka badan gaaray ma ku soo kar ma fahamino waayo shirkadda marka laga soo saarayo ba maaragta waxa lagu soo programina 90 kiiloomitir ka badan inuu gaaray ku soo karin baabuurta qaar 80 ku xiran wadamada qaar 95 waaye wadamada qaar 85 waaye sababtaas ayaa mar walba wadada qaybtan ku socdo ugu socdaa sida sharcigeena inta ayaa la iga rabaa inaad ku socdo ma fahamino ma sheegin wadada hadii 70 ee taa oo kala maarayto qof aan rabo inaa baaseeyo xitaa meel walba kuma baas gareey karo qofku ma faado waa inaa meesha ku baas gareey karo ee tahay wada la ogol yahay ma fahamino hada xariiqmaha wadada dhaxda mujida way kala go'ayeen taas macnaheedu waxay tahay qofka waa baas mareey kara ma faado laakiin hadii xariiqan dheer ee tahay oo kale aba xariiqan dheer ee go'ayso hadan ay dheeraanayso ay go'ayso qofka ma baas mareey kari waa inaa sugaa ilaa xariiqantaas ay ka baabaayso ma faado soo marka sababtaas ayaa mar walba wadada dhinacaan ugu socdaa wadada dhinacaan markaysa waxa ku taala daliigin dheer oo cad soo ma jeedid hadaa daliigintaas ka talaabo oo gaari ku dhaco ama qof gaari saaran ku waxyeeleeyo halis way baxara ku jira ma fahmaysaa ma waayo taas macnaheedu waxay la mid tahay anigoo ishaarada maarata ama traffic light asigu guduud
anigoo maray ay la macno tahay waa diliiginta dheer taas ay la macno tahay ma fahamino soo marka diliigmaha macno ay leeyihiin diliigma qaar waxa jiro oo ku digaya hadda marka highway-ga aan ka degano waayo highway-ga ku socona waxa la dhahaa E6 ala dhahaa wuxuu tagayaa meel uu ka burburay hadda koor idin tusay muuqaalka ugu dambeeyay inuu ahaa umaleynaya waa ka leexanaa ma fahamtay marka wada yariiso baadiya koraya wadadaas marka waxay leedahay daliigma ku digayo ku dhaay wadadan yaani leexleexatadeeda badan ishaada fogaashadeeda markan ay wax ku arkayso way xadidan tahay meeshaad heeso yaani ha sameeynin qof ina baas maraysid soo marka imtixaanka theory-ga baranaysid markan oo cashirka ko marka baranaysid oo darawalnimada baranaysidna buwaagta way ku qoran tahay waa lagu barayaa ma fahamtay hadda waxa mareena ama dhax mareena Kunyalf tuulada la dhahayo tuuladan shalay ma daraad waa joogay waa ka shaqeynayay soo Kunyalf ayaa joognaa hadda Kunyalf waxa ka dambeeyo istuura hooga meel la dhahayo kadib waxa imaanayso degmada Stenungsund kadib waxa imaanayo adi tuulooyin badan ay imaanayaan ma fahamtay soo marka ay kana arki doonaa idinkugu sheegay highway-ga E6 wali dhismaa ka socdo oo caraguura ayaa ku dhacay soo marka anaga waxa ka deganaynaa meeshaan laga degto si aan u tagno magaalada Udvala kadib waxa ku socod doonaa wada yariis oo aan highway ahayn oo wada maxal dhaha wada baadiye wadadaas ayaa ku socod doonaa sida Udvala way maana kadibna highway-ga ayaa meel damba ka soo gali doona ma fahamtay adiga dhowr iyo 10 kilomitir kadib ayaa highway-ga gadaal ka soo koreena waayo horeydaas mala mari karo dhismaha ku socdo sida ay sheegayeen waxa la furi doonaa bisha hadda soo socota ee July ama Luulyo tan horey camera ayaa la soo dhigay camera aan ahayn ku meel gaar kamerada ma fahamtay ayaa la soo dhigay waayo maadaama meeshan oo iskuul ku yaalo laamiga lagu socdana uu yahay laami afiskudish waxa lagu dhahaa Landsberg yaani wada baadiye waaye soo saas darteeda camera ayaa la soo dhigay si aan loogu socon xawaaro badan waxa kadib xawaara 60 isku bedelaa kadibna wuxuu noqonaa 80 kilomitir saacadii soo hadda xariiqanta mujida wax jar way ka waaweynta tii hore ee highway-ga ku sawirnaan marka koowaad tusinayay laakiin muddo wax yar kadib waxay noqonaysaa xariiqin dheer waxa dhaxmaroona tuulal dhahayo Uklum oo ka tirsan degmada Stenungsund wadadan waa wadada idin sheegayo wadada baadiyaha waa sidaan labadan line waaye line-kaas kale waa lagu imaanaa line-kan waa lagu soconaa mararka qaar cariiri waaye ma fahamtay oo waxa imaanaya traagyo waaweyn saaxiib oo alaab culeys badan wadaan ma fahamtay meeshaan ayaa ka qabsanaynaa highway-ga si aan u tagno magaalada Udvala waayo wadadii dheereed dhibka badneed rafaadka cariirigeed waa ka bixinaa hadda highway oo 110 ah koreena laakiin wali anaga 90 ayaa ku socon karnaa ma fahamtay inkastoo hadda meeshaan wali dhismo ka socoto laakiin way dhaantaa hadda waxa imaaday Udvala waxa sameynaa alaabta iska dejinaya kadib waxa aadaa xaafada magaalada Trollhättan oo inta u jirta 27 kilomitir camal ayaa aadaya laakiin hadda marka hore waa in alaabta hadda waxa tagaynaa magaalada Vänersborg waxay u jirtaa hadda meesha joogo 10 kilomitir alaab ayaa geena alaab ayaa ka soo qaada kadibna waxa ku soo noqonaynaa magaalada Trollhättan kadib break ayaa qaadanaa ama qadadeedii kadibna magaalada Göteborg si toos u tagaa ma fahamtay dadana hadda koreena ma aragtay waa buunda aan necbahay iyadana cabsi waay ma fahamtay waayo wadadeeda ama yaani meelaha lagu soconaa ma aragtay aad ay u yar yihiin si oo maxaa la dhahaa si fool xun oo cabsi ku jirtana ma aragtay cirka ay ugu jirtaa ma fahamtay
ساسا ونعبا يعني سيفون حمد بدن مارتي عرق وجرتا إذا دن وعبسي مركي مقدي قطعان اسكداب هورتو يالي مروين كسو دبادا دقمدا فداش بوري قوالكا فستري يطلع الحمد لله هذا هو سوق ذي ساعد وحاواي 5 ساعة يكونتل بسيال دقيقة يعني لبي طبنك الدور كامل 6 ساعة ودور نمو أو هل دقيقة نمو ما فهمتي عندنا وحا أفك أديننا مقالة يتبوري قالوا دون تا سفر كان هل ساعة ضوض أيو قادوا دولا ما فهمتي سو مركا مقالة يتبوري أي أفك سارينا عدو حاجوغنا مقالة ترول هيتان وحا كورينا هاي وي قال دهو E45 أما E45 E45 هاي وي سايا كورينا مدنيال إمروين حدنا waxaad ku soo dhawaataan degmada Liila Eilid ee gobolka Western Jutland kan markay saagaarkee meeshaas markii laga bilaabay Tabori waxay ii jirtaa 50 kilomitir oo hor leh waa anoo lambar 50 ka soo socdo xamar u soo socdo saacad gudeed inaan ku tagana leeyahay ma fahanti waliba ka yar wali 45 daqiiqo ugu badnaan inaan ku tago hadda maanta lambar 50 aada waxa laga yaabaa maalin dhan inay ka cunto ma fahmino laakiin meeshan laamiga nadiif ee ma fahanti yaa agaha u laabay baawur ma fahmino واي حوارة بدنا لو صعنا فات حوارة أقول ودنا لو صعد وحوار تضباطن صابته إنه خلنا سنو حوار ميلها صانع عمل مفهمينه وديجان ميلها ديجان كمركز سود حق شت مفات أنت كلو حوار سجاشن بقول هذا باور يجهر ماركس ميت كيبا سن إلا 20 متر كيسو ما فهمتي ده بدأ يخرج تحت سن إلا 20 متر نعرف كرتان إن كلام ماله معك وطالع 6 كيلومتر ساعة كبدن مكسو عكران أنا سجاشن واي محلا ماكسيجا سو بوستا كوريوا ما فهمت هبل بوستا لوريوا مقلجت سومان يا صاحب تيك توك waxaa ku arkaa muuqta akhyaar dhalinyaro baawureeyo dhaan hebel feeter waay ay feeter ta isoo qorayaan waa ujeeda dadkaas oo galooyay soo galna magaalada Tabori intaan wixii ka dambeeyay maarkano highway-gi boqolka lagu soconaa waa isku soo dhamaatay ma fahanti intaan wixii ka dambeeyay waxa waay saaxib 8 fahmino بوليسكن ويجعلين حلقان وكلا بنانك إني كلو دونتان مفانتي يا عيارة الدولجي ينورت عيارة مفانتي مركا سديتن اللي وصعنا الحمد لله عدو حاوي 6 ساعة أفرتني 6 دقيقة هذه 5 دقيقة كدي باجوغا ترمينال كوسع مفانتي سدح شبكة دقايا كدي بنو حاسوق هذا شدالة أورتو كشوا قاسا كشوا قاريا قاس واي قاس كمرقا كشوا كدي laba jeer hal meel waxa ka soo qaada alaab soo mararka qaar hal mar ay noqon kartaa mararka qaarna laba jeer ma faanto gaarigu buuxa kadibna waxa waa dhameynaa maanta ma faanti inkastoo saacad iyo 2 saac iyo xoogaa ay dhimatay maanta 3 galabnimo ma dhameynaa saaxiib saakana shaqada waxa galay 5:35 aa gala ma faanti 4 subaxnimo ka ma faanti soo marka alxamdulillah maalinta saaxiib si fiican oo kala kacsan ee maalinta ku socota ma faanti waxa sheegay dambi waa brother adina waxa rajeynaa in maalintaada ma aragtay sidii aan ii tahay mid ka qurux badan ee ku tahay maalintaada waatana isbaarada dawladda waatana دقن هذا وقت في عنا هستي تلفونك شقة دم ودم ما فهمت
أنا جاجر موتي سو وأنا ماشي سكون نقطة تلافك الأسواق يا بلا خويت موبيل ما أنا أعطونا لك جام وساعة ما فهمت أنا قاعد وشغلي وكسر ما هذا حافظي ذا وصعدا لين كان أحد كصعد كدجنا ما فهمنه منتظم تشهد حتى أنا مرة وبلا توفيق نينكي توس كان أصعد ما رأيت حافظ بارت الله ممكن بقنينك أصعده جقي كنت ما فهمنه لكن أنا ساعة بدي كدجنا أنو قال استوى خبصنا وأشكر مات حتى أنت كذا ساعة ما فهمت مقالك مركا كلا تخاند ماركنو لوق أو كلا كسي سيد ودكا حربي صحابين عتيم ملا ساعة ما فهمت واي هاي ويجن هذا كوسيس على هاي لما عبد كماركنو ماشي قرقة تسوق الدجال هاي ماشي سيد الترافيك نقطة ما فهمت أنت دعو قطعها لين كوب بدل هذا أنا ساعة ما فهمت واي لين باور تسعة ملا كوسو بس مجددو ستريس صاحب ستريس هذا تقاي